السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلي قالي الصدى وهذا عافمتكينا سيتيهين marka waxaan jeclaystay videogan inaan idin la qaybsado maanta. Videogan hore channelkayga ugu jiray marka maadaama dad badan ay igu xirneen that time hadda ayaan jeclaystay inaan soo daayo. Marka I hope inaad videogan ka heshaan. Hadaa ka heshaan thumbs up, like and comment. Waa weekii ugu horeeya oo Ramadan insha Allah. Sameeyo bur obviously iyo qamadiga oo mishaarida laga sameysto. It was mirnum ku jiro. Marka hadana sambuuskeyga mar walba waxaan ka sameystaa bahasha oo burrito-ga ee loogu talagalay in lagu sameeyo, because sambuuska maxaan ka sameysto waxaan arkay saliid badan igama qaato, saliid badan ma cabo, which is very nice. Saliid faraha badan ani ma jeceli, laba igu qabataa marka afka ii gasho. Marka saxankeyga sidaas ayuu maalinka u ekaaday, canjeeradii, maraqi iyo wixii oo dhan. Haddana waxaan rabaa inaan sameeyo banana bread. Maxaa la dhahaa, moos ayaa ii yaalay, 4 xabo moos oo madoowaadeen ayaa yaalay. Marka ma rabin inaan tuuro because wuu fiicnaa still. Marka waxaan dhahay banana bread ka sameyso. Banana bread-ka ciyaalka aad ay u jecel yihiin, especially my kids aad ay u jecel yihiin. Marka waxaan sameeyay 4 moos oo soo jajabiyay, 4 xabo maxaan ku daray ukun ah, kadib waxaan ku daray brown sugar iyo sokorta cad. Marka bacdi haddana waxaan ku daray maxaa la dhahaa vanilla extract, and then waxaan ku daray waxa dhan waa arkaysiin anyway, iyo baking powder iyo baking soda. 2 qaado yar oo baking powder iyo qaado yar oo baking soda ah. Kadibna ovenka ayaan ku tuurayba, saxankiisa ayaan ku shubay, kadibna ovenka ayaan ku tuuray. Was very aad iyo aad u macaaneed. Marka haduu mooska ka madoowaado waxba ha tuurin, waxyaalo badan aad sameysan kartaa, banana bread mise banana muffin whatever. Aniga this time chocolate aan ku daray. Chocolate-dana ciyaalka kale ani my kids chocolate way jecel yihiin. Wax walba da chocolate u kor saartid waa la cunayaa masha Allah. Marka just find waxa ciyaalkaaga jecel yihiin, waxaas leh cuntada ugu kor dar, and they should be fine. Way cunayaan wax walba insha Allah. Sorry sidii ku soo baxay idima tusinin, for somehow one do way, but I don't know meel ka baxay ma aqaana, but it was very nice. Next time markuu aan kariyo sidii ku soo baxay ayaa idin tusin doonaa. Hadda I don't know clipki uu iga baxayba meeshuu aaday ma aqaano. Marka burkii wixii dhan aan isku soo dadaray wakaas ku soo baxay, kadibna saxankiisa ayaan ku gadinayaa. Haddii videoyaasha noocan camal ka hesheen so far hal week idin soo geliyo oo hore, make sure inaad subscribe garaysid, like, comment and share. Saaxiibayaashaada la share garee waayo. Marka maxaa haysiin warkiina keena, caafimaadkiina ka warama. I hope everybody is doing well. Anaga waan fiicanahay, caafimaadkeena bashbash iyo barwaaqo ayaan nahay. Marka sheekada hoos nagala soo sheekaysta, ha ismartiyeenina, soo dhawaada. channelkiina waaye ya gabadhiina waaye. Anyway, saan ayuu ku soo baxay. Haddana mishaari ayaa karsanayaa. Mishaarida waxaa sameeyay iyadoo sideeda ayaan dab ku soo shubay. Marka ka bacdi markay karto waxaan sameynayaa blenderka ayaan ku shubayaa. Markay qabowdo waan soo shiidayaa. Markaan soo shiido haddana dabkaan ku soo celinayaa. Brown sugar iyo caano iyo waxaan ku darsanayaa iyo butter. aad iyo aad ay u macaan tahay. Haddaa sidaan u karsanin try it and let me know hoos igu soo qor hadaa ka heshay. Marka waa isku walaaqayaa iyada dhan. Markay burto kadibna waa ka dejinayaa. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان Pastadan ayaan karsanayaa haddana. Obviously pasta si loo kariyo everybody wuu yaqaanaa, but I'm just sharing with you guys. I hope you like it. Dhiirigelin unbay iga tahay aniga. Marka if you like, hit that subscribe button iyo maxaa la dhahaa like button-ka. جمل أوقاتي
زي صحبتي عايز لا 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 marka baasadani sida quruxda badan ayay ku soo baxday. steak yarna waa u karsanay, mashallah, it was very delicious. inkaan ayaan karsanayaa. haddana chickenkan waxaan ku sameeyay toon iyo kabsar caleen iyo maxaa la dhahaa lemon zest mise liinta qolofteeda. haddaa haysato geedka lagu xoqana ku xoq liinta, haddaa rabtidna waa isku shiidi kartaa ayaga dhan. kadib chickenka ayaa marinaysaa 30 minutes ayaan la dhigay. after that grillka ayaan ku kariyay mise saxanka doontid ku karso. marka chickenkeena ayaan saxanka kulul karso saaranaynaa, kadibna side dhinac walba waxaa ka karinaynaa 5 daqiiqo. markuu dhinaca ka karo dan dhinaca kale ayaan u gedinaynaa, kadibna wuuba karayaa bade. haye rabadaankii idinka iyaa reeyay, asaga ma idinka reeye mise idinka ayaa ka reeye? warkiina hoos kusoo qoraa idin dhahay gabdhaha. waa kana chickenka saan ayuu kusoo baxay, was very nice. maantana maalintaana dee waxay ahayd easy cunto karitaan. maalintaa waxaa sameeyay digirta oo shooda ku jirta unbaan dabka saaray, waan isku shiilay. baradha ayaan ku daray, nyaashiishiile ku daray, end of story. maalintaa maxaa la dhahaa isma lurinbo. islurin isma lurtaan maqli jiray, isma lurin maalintaas. sidaas ayay ku dhamaatay. ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. wixii oo dhan wuu isku soo shiilmay, baradhadii, everything, digirta, basasha, everything wuu isku soo shiilmay. kadib waxaan sameeyay last minute ugu dambeysay oo rabo dabka inaan ka damiyo ayaa waxaan ku daray basal cagaar, kadibna dabka ayaan ka damiyayba. marka mar hore ayaa idin sheegay inaan maanta islureynin. waxaa sameeyay haddana baalka oo jabatiga ahaanta maaragta oo Arab store-ka oo frozen-ka ku jiro, kaas ayaan soo qaaday, kaas ayaan kariyay. marmarka qaar waa u baahan tahay easy job, you don't need inaad everyday jika ku jirtid oo wax aad karisid. but yeah, alxamdulillah. marka maalintan waxaan sameeyay chicken legs kaneeto ayaan karinayaa. chicken legs kana waxaan sameeyay oven-ka la ku tuurayaa, wax dabka maanta dhan la kor taagnaanaya ma aha. waa marinade gareeya, waxaa ku daray liin qolofteeda iyo kabsar caleen iyo maxaa la dhahayo iyo maraq digaag. kadibna ovenka ayaan ku tuuray. haddana waxaan sameynayaa mosbakeni. marka wiigii cuntada aan kariyaan kusoo dardaray sifa oo idea looga helo. aniga hataa sometimes idea waa u baahanahay. marka hadaa waqtigan soo gaartay, mar walba waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaada qaaliga. intaan waqti kale ka kulmeyn waxaa idinka tagay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye guys.